إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد أنفقوا على هذه العيال المحتاجين بارك الله فيكم سيئة ولا أريد لا آخر سيئة اليوم عندي رسالتان وأنت وحن سيدا الله برفر ريمور الرسالة الأولى إلى جميع الفنانين والفنانات كبارهم وصغارهم رجالهم ونسائهم وحن فرينت كواد أدريا ضمان عدة الله يراهد الله بحضي فنانين تا رقا يو فنانات كالدمر كالرقا يدمر ويال كودا يدني يرضو مكل الربي أقول لهم اتركوا الغناء وبادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب وحنوكو باقيا هيساها يفنك إسكاكتاكا oo toobada u degdega intaan albaabada la idin ka xidhin toobada wa'lamu anna al-ghinaa yumbit an-nifaaq fi al-qalbi kama yumbit al-maa al-baql munaafiqnimu abuurtaa heestu oo qalbiga ku abuurtaa oo ku beertaa sida biyaha loogu beero sarac iyo baqalka wa annahu qur'aan shaydaan wa annahu ruqyatu sira wa anna al-qur'aana wal-ghinaa la yajtami'aan fi qalbin abada heestu ama bafanku waa quraanka shaydaanku akhriyo waa ma weerada dhiiri gelisa shahwada bini'aadanka iyo sinada heestu iyo quraanku haduu qofku hees jeclaado qalbiga ma wada galaan mid baa ka faaruqaya la shaka fi dhalik abad wa annahu sawtun mal'uun kama akhbara nabiy sallallahu alayhi wasallam fanka iyo heestu waa cod ilaahay nacibiyo u nacdalay sidoo rasuulku inooga warramay alayhi salatu wasalaam ولا ليال ميدان مقال قودك أدك الرسول كشيغي عليه الصلاة والسلام إلو سوچيدي كوة هيصا يكوة ميوسيقى تنتا يكوة خمرق عبا عمران بن حسين با رسولك كوري عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال الرجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك قال إذا ظهرت الغيان وشربت الخمور وفي رواية الغينات nabigu maalin baa wuxuu عليه الصلاه والسلام aakhiru zamaanka umada waxa ku iman doona dhulka oo hoos loola gooyo iyo in bini'aadanimada laga nasaxo oo xayawaan laga dhigo iyo in cirka dhagaxaan laga soo daadiyo waa halaag soo maaha waxa la weydiiyay nin muslimiinta kamid ah saxaabiga wuxuu rasuulka goormay dhacaysaa wuxuu marka ay bataan muqanniyaadka iyo dumarka fanaaniinta ee heesa iyo hobolow iyo muusigoodu iyo khamriga aad loo daldalo aad loo cabo maalintaasay dhacaysaa buuri cirkana dhagax ka eeg dhulkana la gooyo ilaahayna doofaar iyo daayar ka dhiga dadka hadii risaalatu ula waa risaaladii hore oo fanaaniinta guud ahaan la hadlay ama risaala thaniya ila haamil raayat an-nujum lil-fann al-mu'asir risaalada labaad waxaan u dirayaa shakhsi calansidaha xidigaha cusub ee casrigan fanka calansidahooda waa nin warbaahinta isku soo cadeeyo yiri dadka aan la hadlayo iyo kuway dhageystay jecel iyo dadweynahaba waxaan ku wada hadlaynaa baraha bulshada ee iga gaarsiin la yiraahdo halkan baynu talada isku weydaarsanayna buu yiri macnaheedu waxaad fariin soo diraysaa aan idin ka helo anna waxaan idin sheegayo dhageysta hadaba meeshii isagu isdhigay baan inagu ugu jawaabaynaa haduu isagu is asturi lahaana si asturan ma la hadli lahayn shakhsigaasi waa shakhsiga loo yaqaanay dadku ay markaa magaciisa ku xayeysiyaan محمد بيكي دليل ربنا باكراني سمراء ودياش مقرنيا هذا الفنان الحديث سنا تكلم بكلمة عظيمة خطيرة بدون روية ولا ذكر وعلى يكون عرفتنا كافة يدستان على الأقل صومالي ذو كليها الله هذي من كان فنان كاهي ولي فنان كدلين تيري كلمة عنصبه كهذلي وخطر بهم وليبا وانو كفكرين يجينا عاقبة هذا واحد دارينش إيش قال بحسب الدرجات والمناصب في الدنيا بين الناس تكون الدرجة عند الله معناها وحو الله قفك وكسر رأيه أمامه وكا يعني عن سيحي أو كشهرة بنيحي أيوه إلهي وقدوي معناها قفك أنت الله أولي هاي الدرجات يمنصب الدنيا وكبه ليسته أما دك وكا عن سيح بو حق الله وقدوي دوانشي محوكا لغاي إن هذا حقا منصب الدنيا كبه ليسته أيوه دوانشي حق الله كدغاي أقول هذا الفنان
الصغير سن الحديث في الفن من كان دليل فنك كل سبحان الله أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول شيئا ما أنا المقل هذا الكير رسولك عليه الصلاة والسلام الصحيحين ككترة يغير كيبة إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يسل بها في النار ما بين المشرق والمغرب وهؤلاء هاي نبيغو نباوحو كهد ليا erayga waxa ka soo baxaya waxa uu yeelanaya ciribtiisa iyo waxa ka ratibmaya ma iska hubinayo erayga iyo kelmadda sababteeda ayuu ku siibanaya naarta jahannama inta u dhaxle halka ay qorraxdu ka soo baxdo iyo halka ay qorraxdu ka dhacdo riwaayad kale waxay tilmaamaysay meel 70 dayrood loo socdo yahwi biha 70 kharifan fi naar تضباطاً ديرود من الله صعدوا النار تكوه وبنيا روايات كلا واحد تلمامي سي فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلغاه إلهي وحا وأدونك وقرية كلمة درتين إنه عراضي إلا ما أنتو قيامها كيمانيو إلهي كلا كل ميو إنت لم يتغادي كريس أدون إنت غادي كريا بيوشرا ميا هداد موضي مالك يمنصب كيو عام بحني ماذا يهوبل النمدو إن لغو سرين يو ألا لغو دوانيو الله قرآن كم يانو كورا وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربنا عندنا سلفا ما ها حوريهين يموبتكين كوين نصركين دواني حقيقة دوان شكاكيه ليسان إلا محيم ويانه إلا من آمن وعمل صالحا أدونك لكن الله الرمية وحو واجبيه عمل صالحا سميه كاسا نصر دوان كوابا البريد الله من لاب يعني وحو شقيسي أجر كيسا ميانا مغر رسول كله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي وحبكم وفريو مراد لك مالي إذن كنا قيمين مايو صورة دينو قرح دينو يشالك هوتهن يدرركين يدبعدين يمدبكين إذن كنا قيمين مايو حولها هذا هي السطان يا مناسبتنا إذن كنا قيمين مايو لكن وحو إلهي إذن إيجا يا قلبك يا إيمانك كتيرا يا عملك كسوفر يا صالحة انت أصول إلهي إذن كنا قيمين ولا فنان محمد بيكي سودو همود العلماء دون كواريسو ويمشى آيات كو هذا الشيء والعلماء قدوا حقوا وحبات كتري وحن كل شيء حاسة في الدنيا الرجال مناسب حقبات درجة قاري الدنيا ده يا كمدا وحكمدا النمرود إلى أهل ماذا شيكتي وحكمدا إسكندر لماذا نبقى الدنيا ده وقت قادي ويخبصين وحكمدا فرعون وهامان وقارون فرعون كي لهني ماذا شاكتي هامان كي وسارده وهي قارون كي مالك وردن هيستي وابو جهل وابو لهب وابي بن خلف رجي وجهده يا منصبك يا تجارده يا مالك ما هيستي يا دلشده يا نسبك وقت النبي محمد عليه الصلاه والسلام اين صاروا حقي هذه ولا الكي هذه ماذا سويدي الى جهنم سومها مرتبه يا درجه ما هي كردسي مي wax ku heleen waxa nagu tiri markaad baraha bulshada ka hadlaysay dadweynaha أنا وايد تعيشين أنا وايد تعلي الله رجعي تجي جالسية باتش الله تذكر وحلقون لقطابان تريه كري قاضي نعم كوارت كاتجل وجالسية ما كوان شجيبه هامان يفرعون يقامان يقارون كواسا ما قاعد يدوده كجتجي قار كوس فرعون صدق كل أصل مضاد من كتشوجنا ولي ما شركي سي مثلا الجدوجة يا ولي وحتى ما يتكسي من هذا كبار موال رضوا فيرسون ما يعيسنا وجرا ما يخر رسين كواسا نكو جالسينا حسيا شهد هذا حرقان معه ملايس إسكوه بسطي ما ينضحن كاغ هوس لقتاد إلهي بريدين وكوسي هذيو مسوا إن هذا ما هبل باي قدري يموه يبركاسي ما الرسول قارن ولا انظروا إلى من هو أسفل منكم الدنيا عدة يدكوه وصيسيقا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم كوي يكسر ريها يجينا هل كاساك هنا إنسانين القراء هذا وحي تهي أجر ألا تزدروا نعمة الله عليكم نعمة الله يسي ميسان حتى القفك كاهو سيئبتو حتى المد قاري كوكو أقمرو قاري عصبو برايو وكوكو أقمرو كوان مقعي الله يسيو واد لغينيسو أنا مان قاري فورها أورانيني ميدو جلباكو سعونا يأك أم لغا بهيني ميدان لغا بهيني كو أيك ما لغولي لكن سهدي عاد حقا كقاردي وحان لأمارينو سيئاتك يا إفسادك
akhlaaqda iyo diinta aad heer ka gaadh ma inaad sii kororsataa soo inaad hoos soo noqoto oo ka soo toobad keento midda kale dadka wax iga dhiga baad nagu tiriyeen dadku maxay maxaan ka dhigi karnaa annagu haddaan wax ka dhigi karayno wallahi qofka u horeeya wax ka dhiga aanu noqon lahaa oo maxaan ka dhigi lahaa shakhsi muslima oo saalixa oo daaciyo dadka u yeedhaan ka dhigi lahaa haddaan wax ka dhigi karayo amma ta'lam anna allah wahda huwa al-khafid rafi' al-khafid wal-rafi' idkala ma jirto ilaahay baa waxna dalaca waxna hoos u dhiga eega doobada u fiirso laba wax ku siman ma jiraan hadday beesadaha xisaabaadka bangiga iskaga mid ka noqdaan inamada iyo hablaha iyo ubadka ma iskaga midba ooryaha ma iskaga midba raganimada ma iskaga midba aqoonta ma iskaga midba fadaaisha kale la bixiyo ma iskaga midba waxbay ku kala duwayn annaas yani marka waa mutafaawid mutaghaayir yani al-ahwal baynahum way kala sarsaraysa way kala duwanta kumid maaha akhi al-fannan waxa aan kuleeyahay anigu ii dhagayso أمامك رجال تابوا عن الفن الغناء والمعازف فاقتدي بهم فتوب إلى الله توبة نصوحا هذا دون يسر كاهرية إلا قارسيو هل كل ركبة كاهرية كاتشيتي أو فنك كتوبة كاني أو هيسها كتوبة كاني كنت يا أو توبة كان توبة نبا أو شروط هذه لما يسطي هل كان كبسوا دوين يا واحد تهاي كنت يا عبد الله الديرية صورات كنت يا سلفه كنت يا دليرada nujumta geeska ee adiga kula filka ahaa ee fanka iskaga tagay sida wiilka yar ee la oran jiray Ahmed Biif markuu heesayo hobalada la heesayo hablaha Ahmed Biif baa loo yaqaanay laba goorna xaramka tagay xajka wayna sugaya muhaadaraad qabanaya imaka wareegaya oo ku baaqaya inay dhalinyaradu masaajidda ku soo noqdaan iyo marka cibaadada marka iyo salaaxa ee loo bixiyay Ahmed al-Khayr la yiraahdo imaka adi waxaan kuugu baaqayaa magac baan ku hayaa waxaan ka rabaa codka macaan xanjarada ilaahay niqmadu ku galiyay iyo mismaarka heesa macaan inaad ka rogto karrago hadana saar quraanka ku bedel kun daaciyan ila Allah daaci baaqaan noqo تعال الى المنبر هل كنا خطبه تعال الى المحراب محرابك قرآنك معان نغتوكي sida wiilashaan ku sheegay raga odayaasha hore hadda sida samayso magac qurux badan baan ku hayaa BK Maxamed BK baan ka bedelay waxaan ku leeyahay Maxamed Mubaarak ya Maxamed Mubaarak تعال الى هذا الاسم الجميل magaca qurux badan la dooro u kaalay adeer baan ku hay wiil yar baa tay waayaha adduunyadana waan kaaga soo horeeyay adiga iyo inta calanka u sido ee dhalinyarada geeska Soomaaliyeed iyo qayrkeed kaalay calanka runta oo qaad calanka tawxiidka kaalay u xambar kaalay qiblada ilaahay u jihee qiblada reer galbeedka yahuudda iyo nasaarada kuwa durbaanada ku tubay ee lagu haysugo ka dhuftay ee ka aqli badiyay ee ku dhaada waxa lagu hormaro mataqaan alla waxa lagu dhamaado waxaynu goran doonaan Mareykanku idinka saanad iyo dhaqaale badan ilaahay baa jecel oo ilaahay idinka dhaweeyay goran doonaan hadaan saaka aamuso sooba haddii kama aamusayno war hobalada iyo dhalinyarada u baaqa qaar badan oo toobad keenay arabta inta arabta soo al-arab تاب كثير من الفنانين والمغنيين والمغنيات تابوا على الفن والغناء انت كرون مدة زمن كرون ويكتوبت كانين قصصنا ولا هيا كون توبت كانين كضيدا كون عروبي سيدتن شركو انت رق iyo dumarka ayagoo toobad keenin ha ku dayanina billahi ta'ala tawfiq subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk